waxaynu qayb ka nahay howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka qaybta ka ah howlgalka ee AUSOM ay si wada jir ah kaga sameynayaan deegaanada Sabiib iyo Caanole. howlgalkan ayaa maanta si gaar ah ciidamadu waxa ay kaga sameynayaan aaga deegaanada Sabiib iyo sidaas oo kale Caanole. ciidamadu inta ay howlgalka ku jireen waxa ay ku guuleysteen in ay burburiyaan fariisimo argagixisadu maalmihii aynu ka soo gudubnay ay ku dhuumaalaysanayeen isla markaasna dadka rayidka ah ay ku dhibaateynayeen. xilligan ciidamadu waxay ku jiraan howlgal culus oo wali argagixisada firxadkooda ay ku sii baacsanayaan. geesiyada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay ku guuleysteen in markaasi argagixisadu ay dhul ballaaran ka saaraan. hadba waxaynu ku soo gudbin doonaa howlgalkan ee maanta si wada jir ah ay ciidamadu u fulinayaan waxyaabaha ku soo kordha. waa Zakariya Qaasim Bagax oo idin kala soo hadlaya aaga deegaanada Sabiib iyo Caanole.